noqdaan kuwa booliiska nabad sugidda iyo xoogga dalka sida danab ayaa u tababaran ka hortagidda iyo baarista xeel dheer ee lagu sameeyo miinooyinka oo la sheegay inay ka mid yihiin waxyaabaha ugu halista badan ee galaafta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed sanad kastaba. halista miinooyinka dhulka lagu aaso ee Soomaaliya ka jirta waxay ka yimaadaan laba dhinac. Haraadigii miinooyinkii ka dhashay dagaaladii sokeeye ee dalka iyo kuwa ay aasaan kooxaha sida Al-Shabaab. warbixin sanadeedka 2020 ay dhawaan soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan miina baarista ee UNIMAS waxay ku sheegtay in 472 dhacdo oo miinooyin dhulka lagu aaso ay ka dhaceen Soomaaliya sanadkii 2020. hay'adda waxay intaasi ku dartay in badi bartilmaameedka loola dan lahaa miinooyinka ay ahaayeen ciidamada xoogga dalka, kuwa nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada kale ee amniga Soomaaliya. kumaandooska danab ayaa kaalin weyn ka ciyaara howlaha miina baarista Soomaaliya, waxayna ciidanka meelaha ugu badan ee miinooyinka ay ka baaraan ay tahay deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee laga saaray Al-Shabaab. kooxda ayaa la rumaysan yahay in wadooyinka ay badanaa adeegsadaan shacabka ay geliyaan miinooyin. waxaa ku soo qabanay waxyaabo badan ee ummadda Soomaaliyeed ee ku haligi rabeen ee wadooyinka u dhigaan, waayo qofka bini aadanka waxyaabaha qarxa adduunka oo dhan ay ka mid yihiin inay dadka dhibaan, nafna ku weyn karaan, gacanna ka go'i karaan, lugna ku go'i karaan, boqolaalaan u jiisa. saraakiisha danab waxay sheegeen in howlaha miina baarista ee ay sameeyaan ay yareysay halista ay shacabka la kulmi lahaayeen. waxay ku booriyeen rayidka inay ciidanka la soo wadaagaan haddii ay arkaan waxyaabaha ay ku tuhmaan miinooyinka. shacabku waxa ugu baaqaa hadeen arkaan waxyaabo qarxa oo meel yaalo inay ka fogaadaan ayna ku degdegin ama ayna ku ciyaarin. hay-adaha caalamiga ah sida UNIMAS, howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo militariga Mareykanka ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka taageera tababarada howlaha miina baarista. ciidanka kala duwan ee Soomaaliyeed sida danab ayaa kordhiyay awoodda ay u leeyihiin in markiiba ay si amni ah u kala furfuri karaan haddii ay arkaan miinooyin xilliyada ay howlgallada ku jiraan. sii socoshada howlaha miina baarista waa mid naf badbaadin ah, waxayna si kastaba faa'iido ugu jirtaa